Assalaamu calaykum. Webiyadu waa isha ugu muhiimsan ee nolosha bini'aadamka. Inta badan dalalka caalamka wax soo saarku waxa uu ku tiirsan yahay ama beeruhu inta badan dhulalka ay webiyadu maraan. Mawduucan waxaan si gaar ah ugu eegi doonaa webiga Amazon oo ka mid ah webiyasha caalamka ugu waaweyn, isagoo kaymaha Amazon-na ka dhigay kaymaha ugu muhiimsan gebi ahaan caalamka oo markaasi qayb lixaad ka geysta kaarboonka hawada lagu sii daayo ama isbeddelka cimilada oo ay hoos u dhigaan maadaama ay ka baxaan halkaas kaymo iyo hirar aad u waaweyn. haddii aan eegno magacaanta loogu yeero webiga Amazon Portugiiska waxaa loogu yeeraa Rio Amazonas, Isbaanishkana Rio Amazonas, oo sidoo kale loo yaqaano Rio Marañón iyo Rio Salomés. webiga ugu weyn koonfurta Ameerika iyo nidaamka biyo-mareenka ugu weyn ama adduunka ugu ballaaran marka la eego mugga iyo qolqolka aagga webiga. dhererka guud ee webiga sida lagu qeexay ama lagu cabiray nidaamyada markaasi uu ka kooban yahay webiga Euxotet Cambrien ee koonfurta Peru waa ugu yaraan 4,000 oo mayl 6,400 kiiloomitir, taasoo ka dhigaysa in uu xoogaa ka gaaban yahay webiga Niil, laakiin weli waa masaafada u dhaxaysa magaalooyinka New York ilaa Roma. ilaa galbeedka ugu sarreeya wuxuu ku yaalaa buuraha Andes oo ku jirta 100 mayl 160 kiiloomitir badweynta Pacifica. afkiisuna wuxuu ku yaalaa badweynta Atlantika oo ku teedsan ama ku yaala xeebta waqooyi bari ee dalka Brazil. si kastaba ha noqotee, dhererka Amazon iyo isha ugu danbaysa labaduba waxay ahaayeen mawduucyo dood ah ilaa bartamihii qarnigii 20aad, waxaana jira kuwa sheegaya in si dhab ahaantii inuu ka dheer yahay webiga Niilka kan Amazon. biyaha weyn ee Amazonia oo ah dhulka ugu hooseeya Latin America wuxuu leeyahay baaxad ku dhow 2.7 milyan oo laba jibaaran oo mayl 7 milyan oo kiiloomitir oo laba jibaaran, wuxuuna waxoogaa ka badan yahay laba jibaar kan webiga Congo oo ah nidaamka kale ee dhulbiyoodka, isagoo fidinaya 1725 mayl 2,780 kiiloomitir waqooyi ilaa koonfurta. halka ugu ballaaran ee baasinkiisa waxaa ku jira qaybaha waaweyn ee uu ka kooban yahay webigan, sida dalka Brazil, Peru iyo qaybo muhiim ah oo Colombia iyo Ecuador iyo Bolivia iyo qayb yar oo ka mid ah Venezuela. qiyaas ahaan 3 meelood 2 meelood oo ka mid ah durturka ugu weyn ee Amazon iyo inta badan ee baasinkiisa wuxuu ku jira inta badan dalka Brazil. aagga qabatinka Tocantins Arceus ee gobolka Peru ayaa daboolaya 300,000 oo mayl oo laba jibaaran 777,000 oo kiiloomitir, inkasta oo dowladda Brazil ay u tixgeliso qayb ka mid ah Amazonia. adeegsiga caanka ah ee haddana farsamo ahaan waa nidaam gooni ah. waxaa lagu qeexaa ama lagu qiyaasaa in qiyaastii 5 meelood oo 1 meel dhammaan biyaha ka baxa dhulka dushiisa uu qaado Amazon. heerka daadadka ee afka webiga ayaa 4 jeer ka badan Congo iyo in ka badan 10 jeer inta uu qaado webiga Mississippi. muggan aadka u badan ee biyaha macaan ayaa milix badda ku milma in ka badan 100 mayl 160 kiiloomitir xeebta. aagaga ballaaran ee ku teedsan soohodinta webiga weyn iyo webiyadiisa oo loo yaqaano Veracruz, daadmareennada ayaa ku dhaca daadad sanadle ah oo ay ka dhashaan kobcinta ciidda. si kastaba ha noqotee, inta badan baaskinka weyn ee wuxuu ku yaalaa ama uu ka kooban yahay dhulka sare oo aad uga sarreeya daadadka oo loo yaqaano terrain firm. in ka badan 3 meelood 2 meelood oo webiga ayaa daboolaya kaymo roobaad aad u waaweyn, kaas oo u gudbinaya kayn qalalan iyo Savannah oo ku taala geesaha iyo waqooyiga koonfureed ee sare iyo kaynta Manatees ee buuraha Andes ee galbeedka. dhirta Everest ee Amazon oo matalaysa kala badh kaymaha dhulka ee hadhay ayaa iyaduna ah kaydka keliya ee ugu weyn kheyraadka baykoolojiga. Yurubtii ugu horreysay ee sahaamisay Amazon 1541 wuxuu ahaa askarigii Isbaanishka ahaa Francisco Orellano oo magaciisa u bixiyay webiga kadib markii uu ka warbixiyay dagaallo ay la galeen qabaa'ilo dagaalameeya hal dumar ah, kuwaas oo uu u eekeysiyay ama
markii dambe u bixiyey Amazon oo Methodist Creek. inkasta oo magaca Amazon uu si caadi ah uga shaqeeyo webiga oo dhan, haddana magaca Brazil iyo Brazil waxaa si habboon loogu dabaqay qaybo ka mid ah dalka Peru, durdurka ugu weyn oo ay ku qudlayaan ama ay dad badan ka quutaan oo ka soo qulqula ilaa buuraha Andes ilaa isku xidhka webiga Estreito waxaa la yiraahdaa Maranhão, halkaasna ilaa xadka Brazil waxaa la yiraahdaa Amazonas. Brazil magaca webiga kaasoo qulqula Peru ee dhinaca Peru ka yimaada una gudba webiga Negro waa Salomés. laga soo bilaabo Negro ilaa Atlantiga webiga Amazon waxaa la yiraahdaa Amazonia. dalalka uu maro waxaa ka mid ah Brazil, Colombia iyo Peru si buuxda, ayadoo dhererkeedu uu markaasi uu leeyahay dhererka webigan oo uu yahay 6575 kiiloomitir 4086 mayl. webiga Amazon koonfurta Ameerika waa webiga labaad ee ugu dheer dunida, inkasta oo sidaan soo sheegnay uu jiro muran ku aadan in uu ka weyn yahay mowduucyada la xiriira inuu Niil ka dheer yahay, laakiin waxaa la isku waafaqsan yahay inuu markaasi أو كدير هي كان كيالا أفريقيا النيل. لكن وكان لبعض أوجوين مجبيها وقاضو وحو حنبارسن يحي بقول كيبا لبعضن أما لبعض لبيع شن صعد كوبيجا بيها معان وبيجا أمازون إيا قيمها أمازون كحيران sidoo kale waxa qasnad ah oo dhab ah oo noolaha xaqiiqdii waa gobolka ugu noolaha badan noolaha qiyaastii 360 milyan oo geed oo kala duwan oo 16,000 oo nooc oo caan ah oo la garanayo oo laga heli karo Amazon. River Amazon wuxuu maraa Peru, Colombia kadibna inta badan dalka Brazil. afkiisna wuxuu ku yaalaa gobolka Amapá ee xeebta waqooyi bari ee Brazil, halkaa wuxuu kaga darsamaa oo uga gudbaa qulqulkiisa badweynta Atlantiga. webigan waa mid la khayraadyo kala duwan oo aad u fara badan, waxaana ka mid ah kaymaha Amazon loo yaqaano oo inta badan heerkulka wax weyn ka tara ama isbeddelka cimilada. waxa uu webigan caan ku yahay sidaan soo sheegnay xawayaano kala duwan iyo sidoo kale dhirtaas faraha badan ee ka baxda, kaas oo ka dhigay mid aad u cajiib ah webiga Amazon ee mara dalalkan Latin America. intaan mid la mid ah ku kulmi doono sida ay nooli kulantay.